بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داود يا الواحد ستوس أهنوغ داونيسان قرحي ويب تي في استوديو عن كلنا حي ودنك كندا غارهان مقالة إدمونتون وحامان تمرتين نوغو قرحي ويب تي في استوديو هيسان مرغو فاضمو آدن oo gudoomiyaha ururka haweenka Soomaalida ogaadeenaya ee gobolka Alberta ku soo dhawow qoraxay web TV marwo Faadmo bismillaahir rahmaanir rahiim ando waxay waadna ku mahadsantahay soo dhaweynta iyo fidinta aad maaragtay soo dhaweyseen marka waan idin mahad celinayaa sidoo kale aad baad u mahadsantahay Faadmo waqtigan fiican iyo fursadan dahabiga ah ee aad siisay qoraxay web TV waxaan doonaynaa inaan maanta waraysi yar oo gaaban halkan kugula yeelano sida aad ogsoontihiinba waxa caalamka oo dhan looga dabaaldegayaa sanad guuradii koowaad ee ururka haweenka Soomaalida ogaadeenaya kaas oo bishii December ee sanadkii tagay lagu yagleelay wadanka Denmark magaalada Copenhagen muddada sanadka ah Faadmo ururka haweenka Soomaalida ogaadeenaya ee gobolkan Alberta maxaa u qabsoon bismillaahir rahmaanir rahiim haddii aan yarka ogeysiiyo gobolkan Alberta magaalada Edmonton haweenka jooga ururka ogaadeenaya waxa weeyaan hawlo badan ayay hayaan halganka aad ayay u caawiyaan maxay ahayd maalin ka dambaysa way soo bataan waxa weeyaan waqtigan xaadirka waa waqtigay ugu xoog badnaayeen ee ugu hawl badnaayeen waanu garanay arrintaas su-aashanada kale waxa ay tahay dawladda guud ee ururka haweenka Soomaalida ogaadeenaya bal waxaad naga siisaa warbixin sida ay ku sugan yihiin iyo waxa ay hawlaha sida ugu qabsoomeen bismillaahir rahmaanir rahiim intii la sameeyay ururka dalada haweenka ogaadeenaya samayntoodii waxaa hadda laga jooga hal sano waxa weeyaan hawlo badan ayay qabtaan shirar ayay leeyihiin maxay ahayd halganka ayay maaragtay habeenii maal u taagan yihiin waxa weeyaan gobol kasta iyo maxay ahayd magaalo kasta iyo wadan kasta shaqadooda iyo maxay ahayd guubaabadooda iyo maxay ahayd hawlaha aad iyo aad u adag ayay ugu jiraan halganka arrintaas waanu garanay daawadayaal weli waxaan bartinka kaga jirnaa waraysigii gaarka ahaa aynu la yeelanay Faadmo aadan gudoomiyaha ururka haweenka Soomaalida ogaadeenaya ee gobolka Alberta waxaan idin xusuusinayaa weli warbaahinta qoraxay media weli waxay bartanka kaga jirtaa iyaduna dabaaldegii 16aad ee aasaaska qoraxay media sidaa daraadeed bal ururka haweenka haddaad tihiin Faadmo ka waran warbaahinta qoraxay media warbaahinta qoraxay media waxa weeyaan horta marka ugu horeysa aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa waxa weeyaan maxay ahayd idaacadda ugu xoog badan oo maxay ahayd xornimada ogaadeenaya iyo halganka ogaadeenaya iyo maaragtay guubaabadiisa oo dhan ka shaqeysa marka waxa weeyaan waan soo dhaweynaynaa waanu kaa qaadanay haddaanu nahay warbaahinta qoraxay sidoo kale maxaad u soo jeedinaysaa dhammaan ururka haweenka Soomaalida ogaadeenaya ee ka howlgala caalamka oo idin waxaan ku soo dhaweynayaa ururka haweenka ogaadeenaya ee caalamka oo idil jooga maxay ahayd waxaan u sheegayaa hadda inaynu yeelanay idaacado kala duwan alxamdulilah waxaa kamid ah qoraxay media radio xorriyo ona waxa weeyaan waxaan haweenka u sheegayaa meel kasta oo joogaan inay la xiriiraan idaacadaha ogaadeenaya maxay ugu horeyso qoraxay media waxa weeyaan oo maaragtay shucuurahooda iyo khudbadahooda iyo waxay u baahan yihiin inay express ka maaragtay ka sameeyaan inay maxay ahayd idaacadaha la xiriiraan in la warsado inay maxay ahayd ay hawlahooda halkaa kasii wataan aad baad u mahadsan tahay
sida aynu la soconnaba warbaahinta Ogaadeniya Qoraxay Media waxay ka howlgashaa gudaha Ogaadeniya waxay ka howlgashaa caalamka oo idin baryahan dambe waxaa socday olole ay hogaaminayaan shucuubta Oromadu kana qayb qaadanayeen haweenka Oromadu maxaad kaga jawaabaysaa haddaad tihiin ururka haweenka Soomaalida Ogaadeniya ee gobolka Alberta sidee ayaad uga howl ama uga qayb galaysaan kacdoonka shacbiga ah ee ka socda gudaha Ogaadeniya ama gudaha Oromiya waxa weeyaan horta shacabka Oromiya waa shacab walaalahaya waa shacaban isku qadiya doonayno waxa weeyaan insha Allah maxay ahayd waan ku taageersanahay inay cadawga gumaysiga ee umada Ogaadeniya iyo Oromiya iyo inta la midka haysta in laga walaaloobo in gacmaha la isku qabsado waxa weeyaan hadda maxay ahayd waan ka qayb galnaa maxay ahayd mudaharaadyadooda waanu la xiriireynaa maxay ahayd jaaliyadahooda sababta waxa isku qadiyad baanu nahay maxay isku dan baanu nahay waxaanu u baahanahay inaanu gacmaha isqabsano oo cadawga isku meel uga soo jeedsano aad baad mahadsan tahay sidoo kale waxa aan maalmahan aan ka daawanaynay warbaahinta gudoomiyaha ururka haweenka Soomaalida Ogaadeniya Rooda Ibrahim Cabdi Gurey Rooda Afjarno oo guubaabinaysa shacabka reer Oromo loona turjumayo bal arrintaas sidoo u aragtaa arrintaasi waa arrin aad iyo aad cajiib oo ah waxa weeye waan ugu hambalyeeynaa gudoomiyaha ururka haweenka Ogaadeniya Rooda Afjarno waxa weeyaan aad iyo aad ayaa loogu wada hambalyeynayaa hawsheedu waa hawl aad iyo aad u adag waxay ka hadashaa mar walba maxay ahayd qadiyada reer Ogaadeniya iyo kuwa la midka ah waxa weeyaan de khudbadii ay jeedisay ee looga turjumayo Oromada waxa weeyaan waa waxyaalaha loo baahan yahay halkan ku salaysan aad baan u garanay dhegeystayaal daawadayaal wali waxaan bartin kaga jirnaa barnaamijkeennii maanta aan ku wareysanay gudoomiyaha ururka haweenka Soomaalida Ogaadeniya Marwo Faadumo waxaan su'aashayda u dambaysa waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo maxaad u faraysaa shacbiga Soomaalida Ogaadeniya adiga oo adeegsanaya Qoraxay Media waxaan shacabka reer Ogaadeniya aan maxay ahayd u farayaa fariin aad iyo aad u adag waxaan leeyahay walaalayaal halgamayaal maxay ahayd guuleystayaal idaacadda radio Qoraxay waa idaacadda ugu horeysa ee halgankeena xubinka weyn ka qaadata ilaa iyo maalinkii la abuuray qof walba oo reer Ogaadeniya waxaan ku guubaabinayaa rag iyo haween Qoraxay Media inay ka faa'iideystaan oo maaragtay shucuurahooda iyo maxay ahayd waxyaalaha ay u baahan yihiin express ku sameeyaan oo dhan inay kala xiriiraan aad baad u mahadsan tahay Faadumo su'aashayda u dambaysa aan doonaya inaan ku soo xidho barnaamijka maanta aan ku wareysano gudoomiyaha ururka haweenka Soomaalida Ogaadeniya maxaad u gudbinaysaa maadaama aanu bartin kaga jirno sanad guradii 16aad ee aasaaska Qoraxay Media maxaad u gudbinaysaa wariyaasha ama suxufiyiinta Qoraxay Media ee caalamka oo idil jooga waxaan marka ugu horeysa waxaan u gudbinayaa suxufiyiinta iyo shaqaalaha iyo Qoraxay Media inta u shaqeyso oo dhan salaan aad iyo aad u diiran oo kal iyo laaba waxaan maxay ahayd Ilaahay uga rajeynayaa inta ay soo socdeen inka badan inay socdaan waxaan leeyahay guuleysta waxaan leeyahay waxaad tihiin idaacadda lafdhabarta halganka reer Ogaadeniya maxay ahayd uu ku taagan yahay maanta waxaan idin leeyahay halkiina ka sii wada qayb weyn ka tihiin aad baanu kaaga mahadcelinaynaa waqtiga fiican ee nasiisay haddaanu nahay bahda Qoraxay Media daawadayaal waxaad si toos ah nooga daawanayseen Qoraxay Web TV xarunta ama studio aan ku leenahay magaalada Edmonton inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa aniga oo Cabdiraxmaan Sheekh iyo kamarmaankayga ah Maxamuud Sheekh Maxamed oo ila shaqeynayay aad baad u mahadsantiin dhamaantiina waa idin salaamaya